السلام عليكم أصحاب السوداء شاكدا وشاكل ليابله بل مركا داوته فكر كذا قيبت كومنتيجا نقول وذاك شاكدا وحيود حيسا والدين المو كو أبوري هويني علوش هذا أي كريستين إيه هويني دي علوش هذا الكريستين شاكدا قبل كاليفورنيا أي كدعدي هوي إيه أبلك ليرادو عمر أحمد وأفرتني شجرة إيه ناونشين جلكار كل مجا مسلم أيوة وتانينكا أيضا مجا إذا مجا تركوا ويا هندين ونقون كرا كل إني مسلمين هن إن كلام ما كانوا أجي تبدأ مجا مسلم لو مسلم هاي نواجرا إني مسلمين ومعقول مركا لبضع سوالت إن يا المدة اللي كده من واحد دمعان سي الموهلان إن قف كله هوين أي علوش هذا كريستان أرنتن وحلي هذا السرقسي وده مدن هاي قلبتك وأي كجرته هذا أفريقيا حتى وأي كبل لابطي إيش أنا سدوا كله وأي كجرته مركا هويني مقعد اللي يرادو مكان وست أي علوش هذا كريستان أو المهودي أي اللجو أبوري المهم مركا لبعتن تضبط مركي مريين أو كدوات أفر بلود إلا إشام بلود أنت قلنا حيسا أي وحل أوجاد المهن حالة عافمات أو دنا عودناها إني قبان markaas kadib 24 toddobaad markii ay marayeen ayaa waalidiinta ilmaha dhalay haweeneyda caloosheeda ay Kristeen waxay ku yiraahdeen ilmahan iska soo tuur hadii uu dhasho oo qalin lagu sameeyo waxa la yiraahdo 75% fursad ah in ilmahan uu badbaado ayuu haystaa marka sheekadan gobolka California ay ka dhacday gobolada Mareykanka waxa uu nahay kuwa dimuqraadiyiinta waxa sharci ka ah in ilmaha la iska soo ridi karo kuwa Republican-kana waa sharci darro ilmuhu muddo bilax intaas la eg hadii ay gaaraan in la iska soo rido ama xilliga la gaaro in nafta lagu afuufayo ilmaha marka ay gaaraan gabadhii marka California waa ay ka tagtay caloosheeda la kireystay ee Makena West gobolka Texas oo mamnuuc ay ka tahay ilmaha la iska soo rida ay tagtay ilmihii marka waxa ay dhashay arbacadii hadda la soo dhaafay ay Dallas Texas ay ku dhashay markaas kadib waalidiinta ilmaha dhalay intay ka daba tageen waxay yiraahdeen ilmahan yaan la daweynin oo qaleen aan lagu sameeynin marka gabadhii arinta waxa soo farageliyay gobolka Texas xeeraryaha guud ee gobolkaasi ayaa maxkamad tagay waxaana amar lagu bixiyay ilmahaas in qalin lagu sameeyo oo la daweeyo waalidiintii marka xilligii caloosha uu ku jiray ilmahan inay dilaan ay doonayeen markii uu dhashayna ma aysan doonin in la daweeyo ama qalin lagu sameeyo gabadhii marka waxa ay tiri caloosheeda la kireystay ilmahan maadaama aan dhalay waalidiintan maba u qalmaan in la siiyo maxaa yeelay intii uusan dhalanna inay dilaan ay doonayeen markii uu dhashay kadibna waxay doonayaan inaan la daweynin marka arintan gobolka Texas gobolka California iyo dawladii dhexe oo soo faragelisay ayaa hadda madaxa ayaa la isku jiraa marka 25 bishan ayaa hadda maxkamad loo balansay yahay marka bal arintan yaa saxan waalidiinta ilmaha dhalay masaha weyneedan caloosheeda la kireystay yaa qaladka iskala bal commentiga nagu la wadaag ilmahan hadii uu soo badbaado weynaado oo la yiraahdo waalidiinta ku dhalay adigoo dhalan inay ku dilaan ay doonayeen markii aad dhalatana sidoo kale in lagu daweeyo ay diideen yu waalid ahaan oo aqoonsanaya ma haweeneydii dhashay oo caloosheeda la kireystay mise kuwii asal ahaan u dhalay oo minidaas ama biyahaas iska lahaa haweeneydan lagu talaalay arintaas waxay tahay arinta muranka weyn uu ka taagan yahay ilmahaasi dhashay in gobolka California Texas iyo dawladii dhexe waalidiintii dhalay iyo haweeneydii caloosheeda la kireystay la isku haysto 25 bisha ayaa maxkamad la isugu soo laabanaya bal fikirkaada qaybta commentiga nagu la wadaag arintan sida ay u dhacdana sidoo kale iyo ilmahan cid loo xugmiyana barnaamijyada dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa iyo maxkamadaas sida ay noqoto waa mahadsantiin asxaabta